inkastoo dowladda ay u diiday Qalinle Sport inuu galo garoomada kala duwan ee ciyaaraha waddanka ayaa haddana waxaa isu soo taraya baaqyada kala duwan ee ka imaanaya bahda ciyaaraha gudaha iyo dibadda iyadoo dowladda Soomaaliya ka dalbaday in arrintaas xal laga gaaro balse dadaalka iyo garab istaaga uu Qalinle Sport uu muujiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee kor u qaadida ciyaaraha waddanka waxaa ka mahadceliyay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab isagoo sheegay in Qalinle Sport iyo dhalinyarada la shaqeysa ay juhdi iyo waqti ku bixiyaan kor u qaadida ciyaaraha Soomaaliya warbaahinta mar walba in ka sameynayso comments-ka joogtada ah oo waxa ku sugan tihiin dadka u bandhigaya hadda aan horteena uga jeedo ninka la yiraahdo Qalinle iyo saaxiibkiis inta waxa ugu mahadcelinayaa sida aan macna u bandhigaysiin shaqada dhalinyarada inay hayso aan ku mahadcelinayaa oo Qalinle rigiisaba shaqada hayaan cidna wax kuma siiso Soomaaliyeed ma hayaan waxa laga yaabaa in dadku aqoon jireen saxaafad wax la siiyo laakiin ragaan ayaga ismaamulo ayaga si Soomaaliyeed u shaqeeyo that's why aan ugu mahadcelinaynaa inay si Soomaaliyeed wax u qabtaan ayagoo cidna dirin sidoo kale gurfayaasha ciyaaraha ayaa iyagana wax laga xumaaday ku tilmaamay in dowladda ay ka joojisay garoomada ciyaaraha shakhsiyaad waqti iyo dhiirigelin basiya ciyaaraha kala duwan ee Soomaaliya iyagoo dowladda iyo wasaaradda ciyaaraha kula dardaarmay in arrintaas ka laabtaan maadaama ay tahay xadgudub iyadoo dhibaatooyin bare ay jiraan aysan jirin meel xogaha isboortiga dalka laga heli karo Maxamed Xuseen Qalinle ugu horeeyo inuu ku dhiiraday inuu dabagalo waqti geliyo xiriirada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ayadoo baahidaas badan maanta soo bandhigay maanta xilligii horumarkii badan uu jiray la gaaro la rajeynayaan in warbaahinta si fiican u sii tabiso in maanta laga mamnuuco waa laga wanaagsan yahay waxa la dafiri karin ama aan la iska indhatiri karin ama la gacan bidixin karin xaaladda sportska dalka ah meesha ay ka taagan tahay iyo sida ay mar walbo ay u garab taagan tahay xaqiiqatan hoolihii aad ka haysay ama u haysay bulshada sportska jooji waxay la macno tahay in la damiyay iftiinkii iyo horumarkii iyo rajadii iyo soo bandhigadii ciyaartooyda iyo arrimaha sports si kastaba Qalinle Sport iyo saaxiibada la shaqeeya marna ma hakinin howlaha kor u qaadida ciyaaraha Soomaaliya iyagoo bulshada u soo bandhigayay waxqabadka iyo halka ay marayaan horumarka kubadda cagta iyo guud ahaan ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen anigu waxaan iraahdaa xiriirka Soomaaliya kubadda cagta gudoomiye ku xigeen labaad iyo guddi fulin buu leeyahay laakiin intaas oo dhan waxaan u arkaa Qalinle inuu ka tayo fiican yahay sababtoo ah Qalinle shakhsi wax ku qaata ma aha shakhsi wax loo yeeray ma aha shakhsi shaqada loo diray ma aha markuu arkay baahida isboortiga loo qabo markuu arkay bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sidii wax inay u baahan yihiin intay fiirsan lahayn ama daawan lahayn ama dhageysan lahayn in ciyaarihii naadiyada Yurub oo kale ay dhageystaan ama ay raadiyaan waxa u haboon in shakhsiyaad Soomaaliyeed wax u yahay laga dhaadhiciyo ciyaarihii qabsoomay qaabkii qabsoomeen meesha lagu qabtay iyo wax u dhaceen horumarka maanta dalka Soomaaliya ka socda iyo hadii wax dhaliil ay jiraan dhaliisha in laga sheego marka Qalinle waa shakhsi isdiray shakhsi asaga markaas ay ku talagalay in Soomaalida meel kasta ay joogaan uu gaarsiiyo marka waxaan qabaa shakhsigaas noocaas oo kale ah ee ay ka muuqato Soomaalinimada waa nin ku haboon in la amaano